أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaal kusoo dhawaada channelka aqoon official. haddii aad channelka cusub tahay subscribe saar, muuqaalkan like garee, saaxiibadaada la wadaag. saaxiibada nagu xiran aad u mahadsantihiin. waxaan gaarnay 11,000 oo subscribe. aadaan ugu mahadsantihiin idinkaa sabab ah inaan gaarno. waan rajeynaynaa intaan iyo inka badanba inaad na gaarsiisaan. mahadsanidin. waxaan gelaynaa xalinta imtixaankii dowladda 2023 fasalka 8aad maadada cilmiga bulshada. ugu horeyn waa inaad iska akhrisaa waxa halkaa ku qoran page-ka hore. waa inaad akhrisaa. waxaa si toos ah u galaynaa goobageli ama ka jawaab ama dooro jawaabta saxda ah. waxaa saaran 60 dhibcood. su-aashiini koowaad, maalinta dhirta Soomaaliya waxaa loo asteeyay sanad kasta maalin ba 17 Abriil, ta 17 March, ja 18 Mars, xa 17 Luulyo. haddaba jawaabta saxda ah ee aan ka dooranayno waa xarafka ba 17 Abriil. su-aasha labaad, dowladaha reer Yurub ee gumaystay geeska Afrika waxay kala ahaayeen Jarmal, Faransiis, Belgium, ta Ingiriis, Faransiis, Talyaani, ja Talyaani, Ingiriis, Jarmal, xa Norway, Spain iyo Faransiis. haddaba jawaabta saxda aan ka dooranayno waa xarafka ta Ingiriis, Faransiis iyo Talyaani. nambarka saddexaad, madaxweynihii ugu horeeyay ee dalka Jabuuti wuxuu ahaa Ismaaciil Cumar Geele, Guuleed Abdidoon Xuseen, Xasan Guuleed Abdidoon iyo Dileele Maxamed Dileele. jawaabta saxda ah waa xarafka ja Xasan Guuleed Abdidoon. su-aasha afraad, waqtigii hore dhulka Eritrea waxaa maamuli jiray boqortooyadii. jawaabta saxda ah waa xarafka xa Aksum ayaa xukumi jiray. su-aasha shanaad, Haile Selassie Ande waa boqornimada loo caleema saaray sanadka markuu ahaa 2 November 1930 ayay noqonaysaa jawaabta saxda ah. number 6, Algeria waxaa gumaysan jiray dalka Ingiriiska, Faransiiska, Spain, Talyaaniga. haddaba jawaabta saxda ah waxay noqonaysaa xarafka ta Faransiiska ayay noqonaysaa. nambarka ku xiga 7, dalka Morocco magaalada ugu weyn waa magaalada Casablanca oo ah xarafka ja ayaa ah jawaabta saxda ah. su-aasha ku xigta ee 8aad, lacagta dalka Tunisia laga isticmaalo waa dirham, dollar, franc, dinar. haddaba jawaabta saxda ah waxay noo noqonaysaa xarafka xa oo ah dinar ayaa laga isticmaalaa dalka Tunisia. haddii aan fiirino nambarka ku xiga ee 9aad, madaxweynihii ugu horeeyay ee dalka Tunisia waxa uu ahaa waxaan maraynaa nambarka 8aad ayaan maraynaa. nambarka 9aad aan dhehe number 9 ayaan maraynaa. waa xarafka ba Xabiib Bourguiba ayuu ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee Tunisia. su-aasha ku xigta 10aad, sababta Morocco boqortooyo dastuuri ah ay u noqotay waa inay leedahay baarlamaan keliya, baarlamaan iyo boqor wada jira, boqor keliya, madaxweyne keliya. jawaabta saxda ah waa xarafka ja boqor keliya. su-aasha ku xigta 11aad, ahraamta dalka Masar waxaa dhisay Fircoon, Namruud, addoomadii boqortooyada faraacinada, Nebi Yuusuf. haddaba jawaabta saxda ah waa xarafka ja addoomadii boqortooyada faraacinada. nambarka ku xiga ugu dambeeya 12aad qaybtani koowaad, niilka buluuga ah iyo niilka cad waxa ay ku kulmaan bartamaha caasimadda dalka Uganda, Masar, Ethiopia, Suudaan. haddaba jawaabta saxda ah waa xarafka ta oo ah Suudaan ayay noo noqonaysaa. qaybtani koowaad halka ayay kusoo koobaynaa.